habeen wanaagsan wararkii ugu dambeysay dhaqdhaqaaqyada ka soconaya caasimada Muqdisho xaalka Muqdisho oo wacaawi yahay allow sahal macluumaad ku saabsan ayaan rabaa inaan muuqaalkan idinku soo koobo mucaaradkii iyo muxaafadkii si adag ay isu weerarayaan shacabka Muqdishona walwal xoogan ay arintan ka muujinayaan muuqaalkan meel fog gaarsii aragtidaada qaybta faallada ama commentiga kaga soo dhiiba hagaagkan ku bilaabo xaaladda Muqdisho caawa way ka duwan tahay habeenadii hore dadka Muqdisho badi waxay indhaha ku hayaan baraha bulshada iyo dhaqdhaqaaqyada ugu dambeeya ee imikan soconaya waxayna ka dhowr sugayaan dhinacyadan tallaabooyinka la qaadi doono iyadoo oo qaarkood baraha bulshada ku soo bandhigaya in xaaladan la qaboojiyo wada hadalna lagu dhameeyo xubnaha siyaasiyiinta mucaaradkana loo ogolaado inay qabsadaan banaanbaxooda si nabad ah halka xubnaha mucaaradkana loogu baaqayo in iyana ay la yimaadaan xal ka duwan hanaanka imikan ay wax ku wajahayaan marka la eego Muqdisho waxa ka qabsoontay munaasabad u muuqatay mid maamulka gobolka Banaadir uu soo qaban qaabiyay laguna difaacay danaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa si adag loogu dhaxweeraray xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka ah ee berri ku balansan in caasimada Muqdisho isu soo bax ay ka sameeyaan marka la eego xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka oo kol hore ee maanta isu kala qeybiyay degmooyinka gobolka Banaadir ayaa la warinayaa in guryahooda laga dareemayo mashquulkii ugu badnaa iyo diyaar garowgii ugu dambeysay ee ay ugu jiraan qabashada banaanbaxan qaarkood warbaahinta ay la hadleen waxayna muujiyeen in sinaba aysan uga tanaasulin aragtidoodii ku qotontay isu soo baxan xilli dawladda federaalka Soomaaliya ay galabta ku sifeysay in isu soo baxan uu yahay mid lagu banaysanayo hantida shacabka Muqdisho iyo in la boobo ganacsiyada caasimada oo wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya uu shaaciyay in sidoo kale ay xubnaha mucaaradka ay hub qaybin ka wadaan caasimada Muqdisho waxayna ku sifeysay dawladda Soomaaliya banaanbaxa berri ay mucaaradku ay sheegeen inay yihiin amaba loogu magac daray hiil shacab oo ay ugu heelinayaan shacabka dawladdu ay ka bareekicisay dhulalkooda ayaa waxa ay dawladdu ku sifeysay inuu yahay mid lagu qalqalgelinayo amniga guud ee caasimada Muqdisho xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka ayaa u muuqda kuwo diyaar garowgii ugu dambeysay wada caasimada Muqdisho wadooyinkeedana waxaa lagu arkayaa ciidamo fara badan oo aad u adkeynaya amniga caasimada Muqdisho waxaana ciidankan lagu wargeliyay in aysan ka gacan laaban xaqiijinta amniga guud ee caasimada sida uu amar buuxda uu ku siiyay taliyaha qaybta booliiska gobolka Banaadir Macalin Mahdi oo goordhow ka hadlay munaasabad ka qabsoontay caasimada Muqdisho waxaana warar soo baxaya ay sheegayaan in dhaqdhaqaaqyada xoogan ee caasimada ka soconaya ay sababi karaan maalinta berri ah isku dhac ciidan oo aad looga digayo shacabka ayaana walwal xoogan ka qaba arintan waxaana soo taraya baaqyada loo jeedinayo dawladda iyo xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka mana jirto dhinacyadan cid u dhaga nuglaanaysa baaqyadan kala duwan ee tooska u soo baxaya 7 aroornimo ama halka saac ee subaxnimo ayay xubnaha sheegeen inay ka dhaqaaqi doonaan guryaha ay ka degeen caasimada Muqdisho iyagoo oo muujin doona dareenka shacabka caasimada Muqdisho sida ay ku doodayaan wixii warar ah iyo macluumaad ay ku soo kordha dhaqdhaqaaqyadan xoogan waxaan idin kula wadaagi doonaa muuqaaladeena kuwan xiga